حديث اليوم وحديث كمانتا. إنه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. waxaa laga wariyey cabdilaahi bni camr bni alcaasi, ilaahay labadoodaba raalliha ka noqdee, inuu yidhi: ma ahayn rasuulkii alle mid waxa xun ku hadalkiisa ama samayntiisa dabeecad u leh, mana ahayn mid iska doondoona oo isku kallifa xumahaas. wuxuuna odhan jiray: kuwiinna idinku dabeecadda wanaagsani waa kuwa idinku akhyaarsan. waxaa isku raacay soo saarkiisa bukhaari iyo muslim. xadiidka maxaa laga faa'iidaysanayaa? 1. xumaanta qaylada iyo hadalka xun, ficilka xun iyo xagxagashadu leeyihiin. 2. fiicnaanta in qofku iska doondoono inuu fiicnaado iyo nicidda loo nacay in xumaanta la iska doondoono. 3. wanaag la jeclaanta dadka iyo waanintooda. 4. wanaag dhammaantii waxa ay ku soo ururtay dabeecadda wanaagsan. 5. dabeecadda wanaagsani dhammaanteed waa khayr aakhiro iyo adduunba. 6. wax ka weyni ma jiraan siyaalihii nebigu sala allahu calayhi wasalama uu u ammaanay dabeecadda wanaagsan oo waxa uu ku sifeeyey: 1. dadka kan ugu khayr badan. 2. dadka kan ugu iimaan dhammaystiran. 3. dadka kan ugu jeclaanta badan. 4. dadka kan alle ugu dhow. 5. dadka miisaankooda waxa ugu culayska badan maalinta qiyaame. 6. waa sabab jannada lagu galo. 7. qofka leh guri jannada meesha ugu sarraysa ku yaal. 8. qofka helaya heerka ajarka uu helayo qofka maalintiina sooman hameenkiina salaada u taagan. intaas oo sifo fiican ah ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiid badan uu ku sheegay, kuwo kalena waa jiraan. aan sii wadno waxyaalaha laga faa'iidaysanaya ee 7. wuxuu xadiidku nalka ku daarayaa sidii nebigu sala allahu calayhi waaalihi wasalama uu ula dhaqmi jiray kuwa dulmiya ama ku qayliya. 8. wuxuu ina xusuusinayaa in loo soo saaray nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam inuu dabeecadda wanaagsan dhammaystiro, uuna sidaas ahaa. 9. wuxuu kaloo tusayaa siduu u dabaqi jiray ee ay caaisha radiallahu canha inoo sheegtay. qur'aanka ayaa dabeecaddiisu ahayd, wuxuu la caroon jiray caradiisa, wuxuuna ku raalli noqon jiray raalli noqoshadiisa. dabeecadda wanaagsani waa milki qofka ilaahay uu siiyey, waana la iska doondooni karaa. waxaan idinku dhaafaynaa hadalkii rasuulka sala allahu calayhi wasalama laga wariyey ee ahaa: dadka kuma wada fillaysiin kartaan maalkiinna, laakiinse waxaa idinka deeqi karaa weji furaan iyo dabeecadda wanaagsan. sala allahu calayhi waaalihi wasalam. inta aynu xadiidka berrito ku kulmi doonno haddii allaha awoodda lihi uu oggolaado, waxaan idinkaga tegaynaa ammaano allah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين فمحمد
قد تجلى رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد.